bismillaahi raxmaani raxiim daawadayaal qodobada wararka tahmiid iyo idin hayo waxaa kamida qaar kamida madaxda maamul goboleedyada oo heshiis ku gaaray magaalada Garowe xiisad colaadeed oo caawa ka taagan magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose afar askari oo ka tirsan ciidanka midowga Afrika oo lagu dilay magaalada Muqdisho gawaari dagaal oo ay wataan maleeshiyada Al-Shabaab oo gudaha u galay degmada Xaradheere ee gobolka Mudug taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed oo ugu baaqay shacabka ku nool magaalada Muqdisho inay ammaanka kala shaqeeyaan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo ka dooday hindisa sharciyeedyada saxaafadda iyo xisaab xirka miisaaniyadii sanadkii 2017 akhbaaraadka dibaddana waxaa ugu doorka roon maraakiib ay leedahay dowladda Sacuudiga oo lagu weeraray dalka Imaaraadka Carabta iyo dhul gariir xooggan oo ka dhacay dalka Baarama waxay naga xasuusina channelkan inaad subscribe dhahdaan like iyo share intaasi daawadayaal waxay ahayeen qodobadii warkeena ugu doorka roona ee u diyaar garooba warkaas oo dhameystiran askari ka tirsan ciidanka midowga Afrika ayaa toogasho u geystay afar askari oo ka mid yahay taliyihii xukumay kadib markii ay is-afgaareen asiga iyo taliyaha wargeyska Daily Monitor ee ka soo baxa wadanka Uganda ayaa waxa uu daabacay in askari ka tirsan ciidanka AMISOM uu dilay askar kale kadib markii dhexdooda uu muran ka dilaacay waxaana murankaasi uu ka dhacay xarunta ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho ciidanku waxa ay baarayaan waxa keenay in mid kamid ah askarta uu Muqdisho ku dilo taliyihiisii ka hor inta uusan asagu isdilin ayuu daabacay wargeysku ila wareed Muqdisho ku sugan ayuu wargeysku ka soo xigtay in askarigu uu ka carooday hadal taliyihiis uu ku yiri kadibna uu dilay afar askari oo isagu ku jiro sabtigii toddobaadkan afayeenka ciidamada Uganda Richard Kremer ayaa waxa uu sheegay in laba askari oo kaliya ay waxyeello soo gaartay haddana uu socdo baaritaan ku aadan in la ogaado waxa askariga ku kallifay falka uu sameeyay waxa ku riixay wali lama oga waxaan doonaynaa in aan ogaano inuu waalnaa iyo in kale ayuu yiri Richard Kremer oo soo xiganayo wargeyska Daily Monitor toogashadu waxa ay ka dhacday saldhigga ugu weyn ee ciidanka AMISOM ay Soomaaliya ku leeyihiin gaar ahaan meel ay joogaan ciidamada ka socda wadanka Uganda oo ah dalka ay Soomaaliya ka joogaan ciidamada ugu badan ila xog ogaal ah ayaa dhinaca kale raadiyo kulmiye waxa ay u sheegeen in muranka toogashada keenay uu dhacay kadib markii askarigu uu diiday in uu howlgal u aado Barawe kadibna uu rasaas ku furay taliyihiisii ay murmeen iyo askar la joogtay sidaasna tirada dhimashada ee askartu ay tahay afar askari oo uu ku jiro askarigii toogashada geystay wali lama sii dayn aqoonsiyada ragga dhintay laakiin waxa aan badnayn in dalka banaankiisa iyo dalka gudihiisaba ay ciidamada Uganda isku dilaan sida uu daabacay wargeyska Daily Monitor waxa joogto ahayd in Soomaaliya ay ciidamada AMISOM ee howlgalka u joogaahay ku toogtaan dadka shacabka ah hase ahaatee waxa yaraa wararka ku saabsan ciidamada dhexdooda oo dagaal u ka qarxay ma jiro ilaa iyo hadda war rasmi ah oo ka soo baxay howlgalka oo ku saabsan toogashada ka dhacday xerada Xalane musharaxiin horle oo u taagan inay qabtaan xilka madaxweynenimo ee maamulka Jubbaland ayaa maanta isku soo sharaxay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka iyadoo la qorsheeyay doorashada Jubbaland inay dhacdo 15 bisha Agoosto ee soo socota ayaa waxaa jira musharaxiin badan oo doonaya inay qabtaan hoggaanka Jubbaland arintan iyadoo ay jirto ayaa waxaa maanta musharaxnimadiisa ku dhawaaqay siyaasi Maxamed Cali Yuusuf musharax Maxamed Cali Yuusuf ayaa ku tilmaamay sababta uu isku soo taagay qabashada hoggaanka Jubbaland inay tahay shacabka kuna deegaanada Jubbaland oo aanan helin hoggaan u adeega balse ay arkeen sida uu sheegay hoggaan ka shaqeysta haddii uu ku guuleystay madaxtinimada Jubbaland ayuu ku sheegay inuu u shaqeyn doono shacabka reer Jubbaland maadaama uu isku soo taagay rabitaankooda aniga oo ah Maxamed Cali Yuusuf maanta oo ay taariikhdu tahay 13 bisha shanaad 2019 magaalada madaxda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Muqdisho waxaan kaga dhawaaqayaa inaan ka mid ahay ragga isu taagaya tartanka hoggaanka Jubbaland darteed ayaan u joogsaday inaan xilkaas raadiyo sababta kaliya ee aan u doortay inaan doorashada ka qayb galana waxay tahay Jubbaland darteed waxaan ahay nin ay lixjecli ka hayso dalka iyo dadka Jubbaland waxaan ahay nin u dhashay kuna barbaaray waxna ku bartay Jubbaland ee deegaanka kuma aanan iman doolaal xildhibaan ayaan ka noqday oo maamulka Jubbaland ayaan wax ka dhisay aniga oo si daacad ah ugu adeegay markaan damcay inaan Jubbaland u heeliyo waxa iga hor joogsaday siyaasiyiin doonayay inay deegaanka ka adeegtaan laakiin ayan u adeegin geesta kale musharax Maxamed Cali Yuusuf ayaa ku sheegay madaxda haatan joogta Jubbaland inay yihiin kuwa fashilmay isla markaana dib u dhac ballaaran ku riday deegaanada iyo hanka Jubbaland
siyaasad ahaan waa ay kuftay maamul ahaan waa ay kuftay dhaqaale ahaan waa ay kuftay dhaqan ahaan waa ay kuftay waxaan u joogsaday inaan kiciyo dadkii xalaasha ahaa ee ila kicin lahaana aan u keeno si dabadeed dadkeeda ay u gaaraan baraare iyo baryasamaad waxaan doonayaa inaan ku kiciyo dhaqan iyo sooyaal aanu ka dhaxallay aabbayaal iyo awoowayaal. xiisad colaadeed ayaa waxaa laga dareemayaa magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxaana lagu soo waramayaa xiisadaas colaadeed inay u dhaxayso ciidamo taabacsan Cabdinaasir Seeraar oo horey u soo noqday afhayeenka maamulka Jubbaland oo haddana shaaciyay inuu yahay mas'uul u taagan inuu qabto xilka madaxweynaha maamulka Jubbaland iyo madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. xiisada ayaa ka dhalatay isqabqabsi iyo musharaxan oo doonaya inuu awood ku yeesho magaalada Kismaayo. Axmed Madoobe oo xilligiisa uu dhamaaday ayaa hadda waxaa la filayaa inuu ka qayb qaato doorashada ka dhicin doonta magaalada Kismaayo. musharaxiin badan ayaa soo sharaxay waxaana ay doonayaan xilkaas inay qabtaan. Cabdinaasir Seeraar musharaxiintaas waxa uga duwan yahay waxa uu wataa ciidamo aad u fara badan oo dadka jooga halkaas ay sheegayaan inay gashan yihiin raiiska ciidanka dawladda. Axmed Madoobe oo ka baxay shirki Garowe ayaa jooga magaalada Kismaayo waxaana la leeyahay waxa ay qarka u saaran tahay magaalada Kismaayo inay xabad ka dhacdo maadaama halkaas ay ku wada sugan yihiin Cabdinaasir Seeraar iyo Axmed Madoobe oo aanan isfiirin karin oo uu ka dhaxeeyo qaaf maadaama xilkiisa uu doonayo Cabdinaasir Seeraar oo horey afhayeen ugu ahaan jiray Axmed Madoobe. wararkaas ayaa Kismaayo laga helayaa waxaana dadka deegaanku ay bilaabeen inay guryahooda joogaan oo aysan u soo bixin meelaha dadku ay iskugu yimaadaan. xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ka dooday hindisa sharciyeedyada saxaafadda iyo xisaab xirka miisaaniyadda sanadkii 2017. golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxay xaruntooda ku leeyihiin kulanka 14aad ee kala fadhiga shanaad. ugu horeyn kulankan oo shir gudoominayo kusimaha gudoomiyaha ahna gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha shacabka Cabdiwali Sheekh Ibraahim Mudey ayaa waxaa lagu dhaariyay wasiirka cusub ee ganacsiga xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Cali Xasan kaasi oo uu dhawaan magacaabay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre. xildhibaanada ayaa inta uu kulankan socdo maanta waxay dood ka yeelan doonaan ajendayaal ay kamid yihiin xeerka saxaafadda iyo ka doodista xisaab xirka miisaaniyadda 2017. xildhibaanada ayaa dhowr jeer oo hore labadan ajenda ka dooday. xeerka saxaafadda ayaa noqonaysaa marsiinta akhrintiisa labaad halka xisaab xirka miisaaniyadda 2017 sanadkii hore ka dhashay muran badan oo golaha shacabka hareeyay. xubno hore uga tirsanaa guddiga maaliyadda iyo miisaaniyadda ee golaha shacabka ayuu gudoomiyuhu bedelay kadib markii ay soo saareen dhaliil ay u jeedinayaan habkii loo marayay miisaaniyaddii 2017. war maxaa diimaanka barlamaanka dariiqeen ugu qabsadaan ee askarti maxaa u diiday $50 in la siiyo war maxaa u diiday agoonta ciyaarka aabayaashood inteen shabaab dileen ee farooto ku dhintay waa oynayeen isaanta gobolka tirkaastan dad kale mishaariisa lama siiyo war ilaahay ka cabsaday barlamaano waa halkii uu ugu talagalay emergency-ga oo ay ahayd 2 milyan iyo bar miisaaniyadda tii ku qorneyd waxaana la isticmaalay 4 milyan iyo in ka badan. waxaan ognahay lacagta contingency-ga wax loo isticmaalo waa masiibooyinka waxyaabaha aadka u dhibka badan gudahana faahfaahintooda kuma qornayn marka laga reebo warbixin guud oo ahayd waxaan u isticmaalnay 14 October. waxaan ognahay 14 October hal maalin oo qarax dhacay oo ahaa dib weyn naga soo gaaray laakiin lacagtaas 4 milyan faahfaahinta meesha ay ku baxday 1 by 1 aan u baahannahay annaga hadda xildhibaanadii baarlamaanka nahay 1 by 1 each dollar $1 meeshuu ka baxay ayaan u baahannahay inaan helno. waxaa laga dhursugayaa hadal jeedinta xildhibaanadan ee ajendayaashan ku aadan. ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa ugu baaqay shacabka ku nool Muqdisho inay kala shaqeeyaan amniga. taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa sheegay in looga baahan yahay shacabka Muqdisho inay soo wacaan number uu sheegay taliyaha oo ah mid ay ka heli karaan adeega ciidanka booliska haddii ay numberkaasi soo diraan. taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa sheegay in looga baahan yahay in ay lambarkaas ku soo sheegaan wixii xoga oo booliskana uu diyaar u yahay inuu kala shaqeeyo shacabka wixii amni darro ah ee ka dhacaya magaalada Muqdisho xilli lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah in waxaan fursad u helnay inuu ra'iisul wasaaruhu noo raaco howlgallada caadiga ah ee sugidda amniga ee ciidanka booliska oo hayo
darfaha magaalada. Waxaa kale oo fursad noo ahayd inuu ra'iisul wasaaruhu soo arko xarunta aan ugu talagalnay in shacabku ay kala xiriiraan dadweynaha ay kala xiriiraan ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Lambarka 991 oo qof kasta muwaadin ah uu si bilaash u soo wici karo. Lambarkaas oo ugu talagalnay qofkii inuu sheego ma loo baahan xitaa magaciisa inuu sheego meel wax ka dhaceen wuxuu arkay iyo hadduu dhibaataysan yahay sidii loo kaalmeyn lahaa guddigoodba. Kaasna fursad noo ahayd inuu soo arko liisku soo arko wixii macluumaad ah uu nala wadaago iyo saan anagu maaragtay aan howlgalayno. taasina meesha ku jirtay inta kale tan waxay howlgalada caadiga ee lagu ku sugayno amniga magaalada Ramadaanka insha Allah idinka Ilaahay shacabkana waxaan ka codsanaynaa si hor ula shaqeyn jireen ciidanka inay ciidanka booliiska la shaqeeyaan kana faa'iideystaan hadeer lambarkana 991 ay ku soo sheegaan wax kasta oo dareen ah magacaaga lama rabo daarta magacaaga sheegin wixii dareen ah dib u keenay amnigaaga iyo xaafadaada iyo deegaankaaga inaad 991 soo wacdid waad la socodsiisay ciidanka booliiska si ay uga howlgalaan iyo wixii kale oo zaa'id ah oo indhaha way qabto. halkaad inaga daawanaysaan waa tahmiidiya iminkana akhbaaraadka dibadda. dhulgariir xooggan ayaa ku dhuftay dalka Barama. dhulgariirkan oo cabirkiisu ahaa 6.1 oo ah cabirka lagu cabiro dhulgariirka ayaa ku dhuftay xuduudda u dhaxaysa dalka Barama iyo Costa Rica. guddiga gurmadka degdega ah ee dalkaas ayaa soo wariyay in 5 ruux ay ku dhaawacmeen dhulgariirkaas halka 10 iyo dhowr guri oo kalena ay ku dumeen. wararka laga helayo meesha uu ka dhacay dhulgariirka oo u dhow xuduudda ay wadaagaan dalka Barama iyo Costa Rica ayaa sheegaya in dadku ay bilaabeen qax oo ay ka cabsi qabaan in dhulgariir kale uu dhaco. dhulgariirkaas ayaa muddo dhowr bilood ka hor ka dhacay dalka Barama waxaana ku nafwaayay dad boqolaal kor u dhaafayo. dowladda Barama ayaa aruurinaysa khasaarihii ka dhashay inkastoo dadka laga daadguraynayo meelaha laga cabsi qabo dhulgariir kale inuu ka dhaco ama dhulgariirka uu ku fido. war wixii dalka iyo daafiis inaga soo gaaray oo kala socoteen tahmiid iyo qiyaarta ina daawatay waa naga inta. waxaan idin xasuusinaynaa inaad channelkan subscribe dhahdaan si aad noola socotaan oo aad gambaleelkana furataan si aad u heshaan markii warkan uu soo dhaco. mahadsanidin.